ورياضهن هلو وقمية حرحي الجديد وأنيجي يوصون لابتي and so sheekadii aan ku saabsaneyd Aasiya ina masaxan baynu sii wadaynaa soo magaceeda Aasi ereygan imika de sida negativeka loo isticmaalayo Aasiya weeyi hode waa naa garmeer dhigata bay ahayd waa laga gardarnaa basically oo dariiq saxay ku socotay waa tii nebi muusena iyadu soo korisay ma fahanteen marka sheekadeeda baynu sii wadaynaa laakiin intaan sheekadeeda sii wadin waxyaalo yar baan dib idiin celinayaa maadaama ay ramadaan la yidhaha qur-aanku bishan soo dega ramiid waa la bishi la isgubaye waxaynu dib ugu laabanaynaa suurat alcalaq cadi caasiya calaq caynkii baynu dib ugu laabanaynaa horta maxay ahayd haastii ma ogtahay curyaankaba caga looma waayina caynkaasi baa loo yidhi alla meesha la isku dagaalaya imikana waa cayn soul sanaag iyo cayn interesting wallahi matrix waynu ku dhex jirnaa laakiin anigu matrixka marna waan ku dhex jiraa marna korkan ka daawadaa so suurat alcalaq ama dee waa suurat aliqra wey iqra read so suuradaasna dib ugu laabanaynaa marka waxaa jira erey ku saabsan oo laleeyahay maalinta yoomul qiyaamaha ama dee dadka maaragtay marka ugu horeysa waxaa lasoo jiidayaa forlaka ama nasiya baa af carabi ereygaasa la yidhaha nasiya buu ilaahay nasiya ni soo qabanaya marka de yuhuuddana waa aragtay nasiyadii forlakii ayay sidan ugu rogeen labada geeso waa kuwa timaha kasoo sii daaya it's very interesting so naasiyadana waxaad fahmi doontaan yibraha magaca kale loo yaqaano naas baa loo yaqaanaa madahanteen nasis baa loo yaqaanaa marka forlakan ama naasihan laga hadlayo waa maxay de waxaa laga hadlayaa maskaxda cilmi ahaan waxay yidhaahaan alla muxuu ahay magacii waaban iloobe halkan waa soo dhigi doonaa laakiin maskaxdaa laga hadlayaa maskaxda wax ku kala saaraysid ilan qur-aanku magaca kale loo yaqaano waa furqaan waxa weeye criterion waxaad ku fahmayside laakiin dadkan iminka dhegaysta idinku dadkan raba uun in la adoonsado adoon ilaahay inaad tahay ilaahayga weyne waaxidka adigoo xora the cloth the clinging form adigoo nadiifa oo xoraa too dhalatay ilaahay kuguma qasbay inaad adoon noqotid dad baa lagu rabaa inaad adoon u noqotid waxaana waxa ku celiya waa dadka cunsuriyiinta iyo adoonta iyagu soo adoonsadeen baa lagu yidhaha orod laabta oo dadkiina idinkuna soo adoonsada u fiirsada dadka waxaas ku celiya adoon baan nahay ilaahay cilmi iyo aqli buu ku siiyey wuxuu ku yidhi waxa khaldan iyo waxa saxaba waad kala garanaysaa the end of the dayna waan ku xisaabinayaa period intaasaa lagu yidhi oo qof akhlaaq ku nool noqo cilmiga laguu sheegaya waa ka okay so nasiya nasiya waa annaas weeyi magaca hibraha loo yaqaanana waa annaas okay waxaan idhi kuwan imika yuhuudda waxay yidhaahaan maxaan ku idhaahaye waxaanu ka keenay anagu dhaqankan isaan u labisanayno iyo dee maxaa la yidhaahaa looga ama de sharcada ku saabsan qofka suu labisanayo timaha si uu hagaajisanayo dhadhadha ilan waa aragtay muslim badan oo idhaaha yes garhka waa ina lasii daaya waa in timaha dhinaca loo jaray waxaasoo dhan ba yuhuudda qurufaadka wada ayaa idhaaha ma fahanteen marka waxay ka keeneen buug biblekana ku yaala buuggii horena oo leviticus baa la yidhaahaa oo ereyga levite buu ka yimid levitena waxa weeye inanuu yaquub dhalay nebi yaquub oo waxay ahaayeen groupkii qaabilsanaa dhaqanka diinta sharaacada reer bani israa'iil ma fahanteen oo waa dee yibraha